xilligii rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam uu noolaa waxaa dhacday qiso cajiib ah. waxaa jiray nin addoon ahaa. ninkaasi addoonka ahaa waxaa xoreeyey rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam. ninkaasi magaciisa wuxuu ahaa Thawbaan, Allah ka raali noqday. Thawbaan waxaa wejigiisa ka muuqatay farxad dhaaftay kolkii rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam xoreeyey. markii rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam uu soo fiiriyo Thawbaan waxaa wejigiisa ka muuqan jirtay farxad cajiib ahayd. wuxuuna mar waliba Thawbaan ahaa mid raadiya inuu arko wejiga rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam maalintii dhowr jeer. waa inuu arko oo kaliya rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam wuxuu u raadinayo, isagoo aragtida rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam ku hilmaami jiray daalka iyo wareerka maalintaasi ka muuqda. waa aragtida rasuulka alle Muhammad naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee oo kaliya. maalin maalmaha ka mid ah muusan arkin Thawbaan rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam waa uu waayey. markaasi ayuu mar dambe arkay. markii rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam uu arkay wejiga Thawbaan wuxuu ka dareemay murugo iyo wejigiisii oo nuuc kala noqday oo ay ka muuqato murugo aad iyo aad u xun. markaasuu rasuulka alle Muhammad sallallahu alayhi wasallam weydiiyey Thawbaan, Thawbaanow maxaa ku helay maanta? maxaa si ka ah ii sheeg? maanta aad iyo aad ayaad u murugaysan tahay, maxaa kaa qaldan? markaasuu Thawbaan ku yidhi rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam markaasuu Thawbaan ku yidhi rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam ma og tahay inaan ku jeclahay? waxaan jeclahay inaan maalin walba ku arkaa kun jeer. markaan ku arko waxaan dareemaa farxad oo waxa iga haada ciriiriga iyo daalka maalintaasi oo dhan. ma ogaan kartid sida ay xaaladeyda noqonayso markaan ku waayo. rasuulkii alle waxaan halkaan u imid inaan ku arko, laakiin waan ku waayey. laakiin markaan ku waayey ma og tahay waxaan u maleeyey rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam? waxaan u maleeyey inaad dhimatay oo aad aakhire aaday. waxaan ka naxay haddii aad adiga aakhire aaddo waxaa laguu qaadayaa alla weyne subxaanahu wa tacaala agtiisa. ma ahan janno oo keliya, halka ugu saraysa ee jannada jannooyinka ugu saraysa ayaa lagu geynayaa oo aad la kulmaysaa ambiyada oo dhan iyo kuwa adiga ku adeecay oo dhan. laakiin aniga weligay dambe kuma arkaya rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam. xitaa haddii aan galo jannada halka aad joogto ayaa iga maqaam saraysa. suurtagal ima noqon doonto inaan ku arko. haddaba rasuulkii alle maxaa igu dhacaya markaasi aniga? sidee noqonayaa rasuulkii alle ii sheeg? markii ay Thawbaan afkiisii ka sii dhammaatay hadalka waxaa yimid Jibriil calayhi salaatu wassalaam oo soo dejiyey aayaddan: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. kii adeecaana alle iyo rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxay ahaan doonaan la jirka iyo rafiiqa kuwa alle uu ku galladaystay nimcadiisa oo ah nebiyada, sidiiqiinta, kuwa raacay nebiyada oo ahaa horaankii iyo ciddii ugu horaysay ee nebiyada sida Abubakar as-Siddiiq radiyallahu canhu, shuhadada iyo suubanayaasha kuwaasi la rafiiqid wanaagsanaadeenah. subxaanallah, subxaanallah, subxaanallah. allow inagu dar kuwaasi la jirkooda, allow inaga dhig kuwaasi la jirkooda. markii Thawbaan uu maqlay aayaddaasi waxaa ku yaraatay dhulka oo farxad ishayn kari waayey. markaasuu dadkii u sheegay oo ku yidhi, ma og tihiin in aayaddaasi aniga sababtayda ay ku soo degtay? ma og tihiin inaan aniga aad u jeclahay rasuulka alle Muhammad sallallahu alayhi wasallam? markaan murugooday oo aan isri dib dambe uma arki doontid rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam waxaa yimid Jibriil oo yidhi, haddii aad jeceshahay rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam oo aad doonayso inaad rafiiqiisa noqoto rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam waa in aad raacdaa dariiqiisa kana leexataa dariiqyada xun kuna camal fashaa qur'aanka iyo sunnada rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. haddaba walaalayaal waa inoo cashir. haddii aan doonayno inaan rafiiqi rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam noqonaa waa inaan ka tagnaa waxyaabaha maalayacniga ah. waa inaan qaadnaa dariiqa rasuulkeenni Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo aan ka leexnaa dariiqyada xun. waa inaan ka fogaannaa, waa inaan mar walba ku taagnaan dariiqa rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal
aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka barino inaan dariiqii iyo rafiiqii rasuulka alle muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo kuwa ambiyada iyo kuwa saxaabada iyo kuwa taabiciinta ilaahay inuuna raacsiiyo ilaahow fidnada qiyaamo ilaahowgiisa inaga marsiiye asalaamu calaykum waraxmat ullaahi أشهد أن محمدا رسول الله